wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka TV Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa daahfuray shirka madasha isku duwaridka arrimaha gargaarka Ra'iisul Wasaaraha dalka ayaa waxa uu xarig ka jaray wadada isku xirto Taleex oo dhawaan uu ka bilaabay dib u dayactir ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir wasiirka dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyay safar uu ku tagay dalka Masar ciidamada dawladda Soomaaliya al-shabaab ayaa ku dagaalamay koonfurta gobolka Mudug wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka furtay mashruuc la xiriira caafimaadka damal iyo COVID-19 taliska admis ayaa war ka soo saaray dagaal ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe Soomaaliya ayaa mashaariic horumarin ah ka heshay hay'adda ILO guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa